Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabteena aan jecelnahay mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada cayaaraha. Haddaba waxaa idinkugu soo gudbinaynaa taageerayaasha Liverpool qalalaasadii iyo amar diidadii ay suubiyeen waxa ay sababtay in laga ganaaxo kooxda Liverpool in ay ku dheesho garoonka Anfield xilli ciyaareedka inta ka hartay. Kooxda hanatay horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa wajahaysa in laga mamnuuco inay ku cayaarto garoonka Anfield kulamada ka haray xilli ciyaareedka haddii taageerayaashooda ay joojin waayaan inay dabaaldegyo ku dhigaan agagaarka garoonka. Kooxda ayaa kula biirtay booliiska Marseille, dowladda hoose iyo duqa magaalada Joe Anderson cambaareyn qaar ka mid ah taageerayaashooda oo dabaaldegyo waaweyn ku dhigay agagaarka garoonka Anfield iyagoo iska dhagatiray baaqyada caafimaadka ee lagu xakameynayo faafitaanka fayraska corona. Dhismaha caanka ah ee Liverpool Building ayaa dab u qabsaday kadib bullaaleer ay rideen taageerayaasha Jimcihii, iyagoo taageerayaasha ay u hoggaansami waayeen sharciga kala fogaanshaha halka kumanaan qashin ah ay kaga tageen wadooyinka dhexdooda. Iyadoo taageerayaasha hanatay horyaalka ee kooxda uu muddo 30 sannadood ah ugu dambeysay horyaalka, booliiska Marseille ayaa soo saaray amar ah inaan la isku imaan karin habeenkii Jimcaha, wuxuuna soconayaa ilaa iyo habeenka dambe. Sarkaal u hadlay maamulka magaalada Liverpool oo lagu magacaabo Andy Cooke ayaa xaqiijiyay in la xiray 15 qof oo rabshado geystay intii ay taageerayaasha dabaaldegayeen. Maamulka Premier League ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdooyinka ugu dambeeyay, laakiin guddiga la talinta ammaanka garoonka ayaa cadaadis lagu saaray inay Anfield ka dhigaan garoon aan lagu cayaari karin inta ka hartay xilli ciyaareedka. Madaxa guddigan oo lagu magacaabo Wendy Simon ayaa u sheegay taageerayaasha inay raacaan sharciga kala fogaanshaha si uusan caabuqa corona mar kale u soo laba kaclaynin. Kooxda Jurgen Klopp waxa u hartay 3 kulan oo ay ku cayaarayaan garoonkooda Anfield Axadda 5 bisha July oo ay soo dhaweyn doonaan Aston Villa, kadib Burnley iyo ugu dambeynta Chelsea. Waxaa kulanka Chelsea midka ay maamulka Premier League u qorsheeyeen in ay ku wareejiyaan koobka horyaalka Premier League, waana kulanka ugu dambeeya ee lagu soo xiri doono horyaalka Premier League. Asxaabteena aan jecelnahay, waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada cayaaraha. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, like, share. Haddaba asxaabay, 10 shay oo dhici doono haatan maadaama ay Liverpool hanatay Premier League. Tallaabada Klopp, Mbappe oo ka mid ah. Kadib 30 sannadood ay Liverpool sugaysay ku guuleysashada horyaalka Premier League oo soo dhammaaday markii ay Manchester City guuldarro 2-1 ah kala kulantay kooxda Chelsea habeenkii Khamiista. Xaqiiqdii Liverpool waxay sanadkan u qalantay in ay ku guuleysato horyaalka Premier League maxaa yeelay waa kooxda ugu fiican horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019-2020. Kooxda horyaalka hanatay ee Liverpool waxaa laga badiyay 1 kulan oo kaliya horyaalka dhammaaday xilli ciyaareedkan, ayadoo dheeshay 31 kulan oo ay cayaareen xilli ciyaareedka. Horyaalka waxay qarka u saaran yihiin inay jabiyaan rikoorka dhibcaha ugu badan ee hal xilli ciyaareed. Haddaba asxaabay, Gifimi Sports ayaa saadaalisay waxa dhici doono
maadaama Liverpool ay hanatay horyaalka Premier League. Lambar 1 waxay saadaalisay taalo loo dhiso Jurgen Klopp maadaama uu yahay tababarihii ugu horeeyay ee kooxda ku hogaamiyo horyaalka Premier League oo ay sugayeen muddo 30 sannadood ah aysanna ku guuleysan wax horyaal ah intii ay dheeraysay 30kaas sano dhexdooda. Waana tababaraha u qaaday kooxda Liverpool abid horyaalka si loogu bixiyay magaca Premier League. Sidaas darteed waxaa socoto Anfield banaankiisa xan ah in loo dhisayo Jurgen Klopp taalo lagu xusi doono, ayadoo halyeeyada kooxda Liverpool ay soo jeedinayaan in taaladaas loo dhiso Jurgen Klopp. Waxaana ka mid ah halyeeyada soo jeediyay taladaas xidigii weynaa ee Steven Gerrard. Qodobka labaad ee Gifin Sports saadaalisayna waxaa waaye kooxaha la xifaaltamayo kooxda Liverpool oo isku dayayo in ay iska soo xoojiyaan suuqa kala iibsiga xilli ciyaareedka dambe maadaama aan la loodin karin kooxda Liverpool. Kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa si gaar ah uga xumaaday hanashada horyaalka kooxda Liverpool. Red Devils oo xifaaltan weyn uu kala dhexeeyo Liverpool, sidaasi darteed waxaa la filan karaa inay kooxda Man City iyo Man United iyo Chelsea ay si weyn isku dhisaan xagaaga si ay u joojiyaan Liverpool xilli ciyaareedka soo socdo. Lambar 3 da'yarta Liverpool oo fursad la siin doono. Liverpool waxay haysataa xidigo da'yar oo tayo leh, waxaa la filanayaa in fursad la siin doono xilli ciyaareedka soo socdo. Xidigahaas waxaa ka mid ah Harvey Elliott, Nazy Williams, Kijana ayaa ka mid ah Kijana. Lambar 4 daafaca Liverpool ee Van Dijk ayaa noqon doono difaacii ugu fiicnaa abid horyaalka Premier League maadaama uu haatan ku guuleystay horyaalka Premier League isla markaana rikoorkiisa difaacnimo uu yahay mid aan loo dhawaan karin. Xidiga reer Holland ayaa u socdo wadadii uu ku noqon lahaa daafaca ugu fiican taariikhda horyaalka. Lambar 5 waxaa waaye qodobka 5aadna waxaa waaye Nat Falkis oo dukumiinti ka samayn doonto 30 sannadood waa muddo dheer in koob la sugo. Sidaasi darteed filo in shirkadda samaysa filimada iyo musalsalada dukumiintiyada ka sameeyo Liverpool xilli ciyaareedka soo socdo oo lagu maamuusi doono guushooda taariikhiga ah. Lambar 6 waa Liverpool oo u baahnaan doonto musharaxiinta biladda ugu qaalisan kubadda cagta ee Ballon d'Or-ka. 7 ciyaaryahan ayaa waxay u sharaxnaayeen abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadkii la soo dhaafay. Waxaadna filataa in tiro la mid ah ay sidoo kale ka soo muuqan doonaan liiska musharaxiinta. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson iyo Alexander-Bakar waa kuwa ay u badan tahay inay liiska ka soo muuqan doonaan. Yaysan la yaab kugu noqon haddii sidoo kale lagu soo daro Roberto Firmino iyo Andy Robertson. Lambar 7 waxaa waaye magaalada Liverpool oo maamuus u samayn doonto Trent Alexander-Arnold maadaama uu ku dhammaystay magaalada kana soo baxay akadeemiga kooxda. Waxaa la filayaa in magaalada Liverpool ay maamuus gaar ah u sameyn doonto xidigooda in lagu wareejiyo furaha magaalada ama in wado loo bixiyo magaciisa. Lambar 8 Liverpool oo u dhaqaaqi doonto Mbappe si ay u soo iibsato. Taageerayaasha Liverpool ayaa carabka ku adkeeyay Kylian Mbappe iyagoo fariimo u diray xidiga PSG tan iyo markii ay Liverpool hanatay horyaalka. Mbappe wuxuu taageero u yahay tababare Jurgen Klopp
waxaana macquul ah in Reds ay u dhaqaaqdo soo xerogelinta laacibka reference. Lambar 9 Liverpool iyo Man City oo ku tartami doona koobka ugu horeeya xilli ciyaareedka soo socda. Maadaama Man City ay ku guuleysatay inay difaacato koobka Premier League ay ku guuldareysatay, waxaa loo saadaalin doonaa koobka FA Cup-ka oo haatan wareegga 8-dhamaadka maraya. Haddii ay taasi dhacdo, waxay iyaga iyo Liverpool dheeli doonaan kulan shirka. Lambar 10 Taageerayaasha Liverpool oo aan la aamusin doonin, maadaama ugu dambeysay gacanta inay ku dhigaan koobka horyaalka, waa ay adkaan doontaa in taageerayaasha Liverpool uu ka aamuso xaqiiqda ah inay horyaalka ku guuleystaan sanadaha. Waxay tahay inay soo hadal qaadan doonaan ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka dambe. Intaasna waxaan kusoo gabagabeyneynaa xogtii laga qoray kooxda Liverpool iyo haddii laga ganaaxi doono 3 kulan ee u haray xilli ciyaareedkan in ay ku dheesho Anfield, maadaama la aamusan yahay taageerayaashooda oo wadooyinkii ay soo buux dhaafiyeen ayadoo laga baqayo faafitaanka cudurka coronavirus. Haddaba intaan ku kulmayna barnaamij lamida, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.